maanta oo 27 bishii February ah iyo shalay oo 26 ah waxaanu safar shaqo ku nimi magaalada caasimadda dhaqaalaha ee Puntland Boosaaso annaga oo rabnay aan u kurgallo airportka international Boosaaso oo runtii aad noo farxad geliyay maaragtay standardka iyo hawlaha ka socda waana airport weyn oo marka laga hadlayo airportada Soomaaliya airport adag oo concrete ah oo diyaaradaha fadhiisan kara diyaarada ka waaweyn kuwa fadhiisan kara Hargeysa iyo meelaha kale oo dhan Galkacyo Kismaayo wadanka intiisa kale marka Muqdisho laga reebo marka waa runwaygiisu aad buu weyn yahay waxaanu control ku sameynay oo booqanay qaybo badan oo kamid ah shalay subaxii 8 waxaanu bilownay ilaa kowdii shalay noobay suurtagelin inaanu clip wariyaasha soo gudbin doona wariyaashana waa ka cudurdaarnaa runtii inaanu shalay clipsan shaqadii badneed nagu badnayd shaqada hawlaha aanu airportka Boosaaso ka qabanaynay waa kuwa aanu shalay iyo maantana qabanay maalmo kale weyn sii siin doono oo salka ku haya inaanu u kurgallo qayb kasta oo kamid ah airportka waxaanu shalay iyo maanta waqti u helay inaanu control aviation security HRM sida ay u shaqeyso iyo qalabkeeda iyo quality-ga standardka shaqaalaha ay runtii gaarsiisan yihiin aad baan raali uga noqonay standardka qalabku aad buu sareeyaa standardka shaqaalaha maaragtay aad buu sareeyaa waxaan kaloo yana kormeer ku sameynay DS aviation fuel chat A1 oo standardkiisu runtii uusan bariga Afrika oo dhan uusan ka jirin standardkiisu uu ka sareeyaa dhammaan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan xarun weyn oo aad u weyn oo laboratory-ga ay haysataana Soomaaliya oo dhan uusan all ay joogaan laba khabiir oo Kenyan ah 14 nooc oo test ah oo kala duwan laga sameeyo runtii waxaan rabaa inaan halka uga mahad celiyo ugana duceeyo Ilaahay inuu maalka iyo xoogaba u barakeeyo ganacsatada Soomaaliyeed ee hantidoodii galiyay maaragtay DS oo runtii ganacsatada Soomaalidu meelo badan oo kale hantidooda galiyaan oo wadana kale aynan lahayn marka dhaqaalaha ay galiyeen iyo standardka ay gaarsiiyeen waa mid aan ugana mahad celinayno Ilaahayna uga baryayno maalka u barakeeyo runtiina aanu ilaalin doono la shaqeyntooda standard aan aad hab uga noqonay runtii markaan airportka Garowe laftigiisa aanu booqanay marka laga hadlayo booyadahooda marka laga hadlayo dabdamiskooda marka laga hadlayo kaydka haamahoodu inta ay leeyihiin runtii waa mid aad noo qancisay oo maaragtay aanu jecel lahay inay kaga daydaan dhammaan ganacsatada iyo dadka reer Puntland ee partnerka nala oo aan kulligood standardkooda qiimeyn doono oo ka rabno standardkaas gaarsiisan inay runtii waxayaan waxaan kala booqanay towerka oo ay maaragtay runtii shaqaale kooban oo aqoontooduna fiican tahay qalabka ay haystaana uu aad u sareeyo runtii aanu raali ka noqonay waxaan kale oo control ku sameynay oo booqanay maanta handlinka qaybihiisa kala duwan oo dhan runtii handlinku waa waxyaabaha airportka maaragtay in flights international yimaadaan iyo standardkiisu inuu sareeyo qayb ka ah qiimaynteedina waa wali way noo socotaa waxaan kala booqanay runwaygu runtii waa sida aan sheegay waa runway very concrete ah waa 2 mitir iyo 400 oo mitir waxa weeye waa 2 mitir iyo 400 oo waxa weeye waa 2 kilomitir iyo 400 oo mitir oo concrete ah waxa weeye waa shub weeye diyaaradaha waxa fadhiisan kara standardkeedu uu gaarsiisan yahay diyaaradda madaxweynaha Trump 747 point baa fadhiisan kara runtii airportka Boosaaso international wasaaradda aviationka waxaanu dhamaanteed inta badan waanu nimi anigoo wasiirkii dowlista wasiiru dowlihii pilot Maxamed Xasan agaasimihii guud Dr. Cusmaan iyo madaxii aviationka pilot Moto
agaasinkii maamulka iyo xisaabiyihii dhammaan wasaaraddu waxaanu geedigaa u soo galnay sidii aanu uguna kurgeli lahayn gacanna uga geysan lahayn standardka airportkaas sidii wax looga qaban lahaa hawlihiisuna waxay u qaybsami doonaan wax aynu haysanno oo qurxinno wax aynan haysan oo inagu awoodno oo ku tashanno maaragtay inaynu qabsanno iyadoo aynu kaashan doono dadka reer Puntland iyo ganacsatada iyadoo fursaddan wali uga faa'iideysanayo Puntland Boosaaso waa beledka xadaaradda weeye adeerkay maxamed cabdi tukaan wuxuu oran jiray meelaan bad lahayn bandar maaha marka geeleydii inay ka badiso maaragtay bandar qaasim halka inay tartan gasho airportkaas runtii waana dadkii dhaqaalaha lagu tuhmayay ganacsatadooda waa la shiri doonaa aqoon-yahankooda waa la shiri doonaa maamulka gobolka runtii waa maaragtay waa maanta aanu la kulannay xafiiskiisaan hadda warkan ku qabanaynaa iyadoo aan aad iyo aad uga mahad celinayo baro saabka iyo baro saabka xigeenka oo runtii baro saabku historically la qariyay laakiin lafdhabartii airportkaas aanu isleeyahay doorka uu ka qaatay cidi kama qaadan waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahad celiyo maarayaha airportka oo oday rogcadaaya oo runtii airportka ka bilaabay isagoo oo garoon cidlo ah maantana standardka uu soo gaadhay tacab badan ku soo galay oo aanu wasaarad ahaanna raalli kala nahay maaragtay shaqada uu noo hayo waxaanu wasaarad ahaan ballan qaadi doonaa ayaamahan waa sii joogi doonaa inaanu qayb walba waaxaheeda la kulanno amniga gobolka iyo hay-adaha kale amniga ee waddanka degan iyo madaxda gobolka la kaashanno sidii arrimaha amniga wax badan looga hagaajin lahaa standardka airportka Boosaasana waxaan rabnaa reer Boosaaso inay ownerkiisa nala qaadaan lahaanshihiisa oo ay lafdhabar u noqdaan waxyaabo waaweyn oo u baahan yahay baa jiro aanu kulanada dambe soo bandhigin doono dariiq laami oo tagaa ka mid ah baarkinka ka mid ah dariiq qaybta hore airportka la isticmaali jiray oo aan rabno in wax laga qabto oo aan rabno diyaaradaha UN-ka iyo kuwa qaadkaba inaan u duuno wala airportka qaybtiisa hore service-kan aanu hagaajino wasaarad ahaan waxaa naga go'an airportka Boosaaso iyo Garowe iyo standardka airportnadeenu inay gaadhaan meesha ugu sareysa ee Soomaaliya ay gaadhaan laakiin waxaan ku tashan doonaa maamulka Puntland iyo fishanka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo runtii aragtida noo jeexana ay tahay in ilaa kulaylaha lana ka rabo inaanu flight international oo dhowr wali keeno ka wasaarad ahaan waxaanu dhexda u xiran doonaa inaanu 24 hours ki 16 hours shaqayno oo shaqaalaha la naf qaybsano oo dadka u abaabulo dadka shacabka reer Puntland iyo ganacsatadoodu waa dadka Soomaali ugu qiimaha badan leh waa dad ay ku taagan tahay waxa taagan laakiin waxaan rabnaa inay nala qurxiyaan oo xoogooda iyo aqoontooda iyo khibradooda nagu beeriyaan gudo iyo dibadba anagu waxaanu idinahay maaragtay hogaankii arrimahan hagaajinaya laakiin dhammaanteen shaqaynan kala lahayn baynu qaban doonaa saxaafadda waa u mahad celinaya fursadani maanta kale nooma noqon doonto tii shalay waa ka cudurdaaranaynaa waxaanu sii joogi doonaa inta aanu himilooyinka aan ka leenahay airportka Boosaaso inaanu hagaajino aynu wada hagaajino dhammaan waxaan halka uga mahad celinayaa oo fursaddan uga faa'iideysanaya dhammaan dadka ka shaqeeya muddada badan ku soo tabcaya muddada badan ka shaqeynaya shaqaalaha airportka qaybihiisa kala duwan waanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ay sar wixii wanaagsan aad qabateen wixii dhimanna waynu wada qaban doonaa wada jir baynu ku qaban doonaa